tan iyo markii la doortay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa isa soo tarayay xogo sheegaya in la kala diri doono ciidamada kala ah militariga Gorgor iyo booliiska Haramcad. Kala dirista ciidamadan ayaa loo sababeeyay arrimo la xiriira dambiyo dhacay 5 sano ee tagtay. Labadan ciidan oo ay si gaar ah u tababareen dowladda Turkiga waxa ay lafdhabar u yihiin booliiska Soomaaliya iyo militariga qaranka. Haramcad oo ah booliiska sida gaarka u tababaran una diyaarsan howlgallada magaalooyinka ka dhaca ayaa ah ciidamo lagu tababaro xarada Turkisom, waxaana marka ay dhameystaan tababarkooda hordhaca ah loo qaadaa dalka Turkiga, gaar ahaan gobolka sida aadka loogu tababaro ciidamada kumaandoosta ee Sparta, waxaana halkaasi lagu soo siiyaa tababar gaar ah oo muddo 3 bilood ah. Ciidanka Haramcad oo la sheego in tiro ahaan ay ka badan yihiin ilaa 1,000 askari ayaa caan ku ah soo badbaadinta dadka rayidka ah ee ku jira dhismooyinka ay gudaha u galaan kooxda Al-Shabaab ee magaalada Muqdisho, waxaana lagu xasuustaa in dad badan ay ka soo badbaadiyeen goobo ay kooxda Al-Shabaab inta ay weerartay gudaha u gashay. waxaana sidoo kale ay yihiin ciidamo u tababaran shiishka iyo soo afjaridda weerarada ay argagixisada soo qaadaan. Ciidanka kumaandooska Gorgor oo ka mid ah militariga qaranka Soomaaliya ayaa la aaminsan yahay in tiro ahaan ay ka badan yihiin ilaa 3,000 oo askari, waxaana ay yihiin ciidan si gaar ah loogu soo tababaray dalka Turkiga. Waxaa la sheegaa in loo tababaray dagaalada gaarka ah ee lagu qaado kooxaha argagixisada, looguna talagalay in ay weeraraan tuulooyinka iyo keymaha ay ku dhulmaaleystaan kooxaha argagixisada. Ha yeeshee ciidamada Gorgor iyo Haramcad ayaa la sheegay in 5 sano ee tagtay loo isticmaalay qaab siyaasadeed, sida ay sheegaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Saciid Cabdullaahi Dani oo ah madaxweynaha Puntland ayaa goob fagaare ah ka sheegay bilooyin ka hor in ciidanka Gorgor uu shaki badan ku jiro habka loo tababaray, ayna yihiin kuwa ka fog naxariista, ayna haystaan hub aad u fara badan balse loo adeegsado hab siyaasadeed iyo howlo aan loogu talagelin. waxaana uu sheegay in 5 sano ee tagtay lagu fuliyay dagaalo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolada Soomaaliya, kuwaas oo lagu weeraray siyaasiyiin gaar ah. ciidamadan oo dabaabaadka wadana ma ogeynay horta Gorgorkan la sheegay anigu waxaan ku maqlay maalin la yiri galmudug la keenay oo dagaal ka socday gada in la geeyana waa maqlay. goobta saddexaad ay ka dagaalameen waxay noqotay daljirka dahsoon. horta inaad saas inaad u kood gareysaan aan rabaa. Haramcad iyo Gorgor meel kale ay ka dagaalamaan male. aniga waa research garay waxaan ciidanka intee la eegyahay. waxaa la sheegay ciidamada Turkidu tababaray iyo kuwa waxa la isku dardaro ciidan hadda aniga aan sheegay dad ka nixinayo tiro badan oo dabaabaad wata. hadda hal maalin shabaabka ma aadin wadada afgooy iyo xamar isku xirto xiranta hurwaa lama tagi karo. war Gorgorkan haday dadka wax u qabanayaan jidadka maxay u furi waayeen? niman meelay ku jiraan oo cid arag oo ani hadda wax lagu akhriyo ma garanayo. Haramcad ayaa iyaguna la sheegay in loo adeegsaday weerar gaar ah oo ka dhacay caasimadda, kuwaas oo lagu qaaday siyaasiyiin ka soo horjeeday dowladii talinaysay 5 sano ee tagtay. burburinta ciidamadan Haramcad iyo Gorgor ma ahan wax cusub. dowladii uu hogaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa burburisay dhowr ciidan oo ay tababareen dowladii ka horeysay ee Xasan Sheekh Maxamuud, kuwaas oo ay ka mid yihiin ciidankii sida gaarka ay u tababareen Imaaraadka Carabta iyo unugyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka, kuwaas oo iyagana la sheegay in ay hore u tababartay dowladii uu hogaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud. balse kala dirista ciidamada Gorgor iyo Haramcad oo ay tababartay dowladii uu hogaaminayay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa la aaminsan yahay in dhabar jab xooggan ay ku noqon doonto ciidamada booliiska Soomaaliya iyo kuwa militariga qaranka oo ay ka kala tirsan yihiin. maxay tahay faa'iidada ku jirta dowlad walba oo talada la wareegta in ay kala dirto ciidanka dowladii iyada ka horeysay? waxaa la aaminsan yahay in dowladda Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaaminayo ay waqti badan gelin doonto in ay tababarto ciidamo ka duwan kuwa Haramcad iyo Gorgor, kuwaas oo ku kala biiri doona booliiska iyo militariga qaranka. haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah, haddii xilka uu ka dego madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, dowladda xigta ee imaan doonta ma waxay tababari doontaa ciidamo iyada gaar u ah?